laga yaabaa inaad sweet soo isticmaalaysa dhowr sano waxaad isticmaali kartaa kelmadahan kala duwan waxaad isticmaali kartaa delicious waxaad isticmaali kartaa yummy waxaad isticmaali kartaa delightful soo dhawaada ku soo dhawaada Iqra College. My name is Coach Abdirisaq. Maanta waxaan qaadanaa updated English ama modern English chapterkii la oran jiray. Casharku maanta waxa weeyaan kelmadaha aad ku bedelan karto sweet. So instead of using sweet waxaad ku bedelan kartaa kelmadahan soo socda aynu sharixi doono. Okay, kelmadda koowaad delicious. Sidee baa loogu dhawaaqayaa delicious? Waxaa la tusaale ahaan oo kale how was the food? Sidee cuntadii? It was delicious. Way macaan. Delicious. Sidee baa loogu dhawaaqayaa delicious. kelmadda ku sii xigto kale yummy. Yummy waxaa loo isticmaalaa waxyaabaha la xiriira sonkorta ama cuntooyinka sonkorta ku jirto. Okay, tusaale ahaan oo kale how was the cake? Sidee waa cake? It was yummy baad leedahay. It was yummy. Way fiicnayd. kelmadda ku sii xigta delightful. Delightful sidee baa loogu dhawaaqayaa delightful. Okay, delightful macnaheedu waa maxay? Waa markaad leedahay shaygaas uu macaana. Shaygaas غير معقول بوها صالحان وكله. Okay, marka waxaad oranaysaa صالحان وكله how was the pizza? Pizza sebe it was delightful. How was the pizza? It was delightful. How was the chicken? It was delightful. Delightful. Okay, instead of استعمال sweet laga yaabaa inaad sweet soo isticmaalaysa dhowr sano waxaad isticmaali kartaa kelmadahan kala duwan waxaad isticmaali kartaa delicious waxaad isticmaali kartaa yummy waxaad isticmaali kartaa delightful تقولي appetizing. So appetizing أنت أنا كلمة الشيء أنا كيرو ريسيرش راح هذير appetizing originally وحي كتمي صالحانو كلا قفكم ممكن مركو خدير سوق الله كلا حلاك هنا عنتير أو كهر سا عنتدي عادي جاهي صالحانو كلا عنتيرو رودي إيو عنتيرو فضل مركا عنتوين كسر حرده appetizers ومركا وحي سميه قفوا كلا appetite كوفرين مركا كلمة دي وحي كتمي in dishki yara kaliya ka koobnaato magac ay u noqoto waxay ku soo biirtay in noqoto kelmadan oo la isticmaalo marka la leeyahay shayga suu macaan sweet oo kale booskeeda lagu bedesho marka waxa raansa salahan oo kale how was the food? It was appetizing. It was appetizing. salahan oo kale kelmadda ugu dambaysa pleasant. Pleasant waxa weeyaan iyadoo originally waxay ka timid pleasant marka leedahay shayga uu ku qancay ama shaygaas uu raali geliyo kale salahan kale cuntadii baa lagu keenay how was it? It was pleasant. It was pleasant. Why? Wuu ku qancay marka you don't have to say sweet all the time. You can use these words. You can use delicious, yummy, delightful, appetizing, pleasant. adigoo shanta kelmadood helaya ha isticmaalin sweet mar dambe. Okay, so intaas ku soo koobi doona waa aniga Coach Abdirisaq ah. haddii aad garanayso kelmadahan qaar la mid ah commentiga hoose noogu reeb waa mahadsantiin.